wafdi ballaadhan uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya isla markaana ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa maanta si mug iyo miisaan leh loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka hor wafdigan gudoomiyuhu intii aanay soo gaadhin gudaha magaalada Burco kumanaan dadweyne ah ayaa u banaan baxay soo dhaweynta wafdiga goob 40 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco ayaa wafdiga lagaga hortagay iyadoo goobtaasina musharaxa madaxweynuhu u baxay faras isagoo halkaasi Muuse ka muujiyay inuu yahay nin ku xeel dheer fardafuulka iyo dhaqanka Soomaalida gudoomiyaha iyo wafdigiisu waxay u soo dhaqaaqeen dhinaca degmada Qoyta oo 18 kiiloomitir u jirta magaalada Burco madashaas oo ay ku diyaar ahaayeen dadweyne ku sumtan calanka iyo astaanta xisbiga kulmiye ee labada midab kuna dhajisan yihiin sawirada musharaxa madaxweyne iyo ku xigeenkiisa goobtan oo ilyartu isqabatay ayay dadweynaha kala hadleen madaxda degmada iyo gobolku abwan Cismaan Ibraahim warsame huran walo ka wakiila deegaanka uu ka soo jeedo ayaa gudoonsiiyay hadiyad lama filaana oo neeceedu tahay faras xamar ah oo sunaari qoob yara oo heensiisu u dhan yihiin iyadoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ka gudoomay kana mahad celiyay intaasi kadib waxa loo soo galbiyay dhinaca magaalada Burco iyadoo lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee magaalada waxaana ku soo biyashubteen guud ahaanba wafdigu xaruntii dhexe ee xisbiga kulmiye halkaas oo ay ku xoonsanaayeen dad qiiraysan oo shucuur kulmiyeysan ka muuqato
wasiirada leh xildhibaanada leh hoggaanka xisbiga ee kale waa soo dhaweynaya soo dhawaada gobolka Burxaan idinku soo dhaweynayna ku soo dhawaada waxaan kaloo halkan ka salaamayaa oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waaweynta reer Kulmiye taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee ilaa iyo xalay iyo shalayto iyo maalmahan baa u diyaar ahaa waqtiga inay soo dhaweeyaan u diyaar garoobay danahoodii oo dhan u soo xidhay aad iyo aad sida quruxda badan u soo dhaweeyay sharafta leh ayaan u mahadnaqayaa sharaf baad leedihiin waa idin mahadnaqayaa boqolkiiba boqol haddaan ahay guddoomiyihii xisbiga waxaan idinku mahadnaqayaa soo dhawaynta wanaagsan iyo taageerada wanaagsan ee aad u samayseen xisbigan idinku mahadnaqayaa waa mahadsantihiin waa goor kulul weeye hadal badani halkan kama jiro hadalkeenna caawaynu ka dhigan doonaa waynu kulmi doonaa si gaara iyo si guudba guddoomiyaha waynu u wada hadli doonaa waynu soo arki doonaa taasuna waa taa waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Kulmiye mudane Maxamed Kaahin Axmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدوميها حسبك قدوميها قبلك والقراء وسيرها تدوينها هيبتك شرفت بدن إلهي ساكا حتى ساعدوا أي كود كله هي بعد كتاجر وحكى لي أي مجرى إساء حسب النمذجة dareenkooda ayay aad iyo aad u muujinaysaa waxaan marka ugu horeeya dadka reer Somaliland iyo bahda Kulmiye iyo bahdii sanabta ahayd aan ka tacsiyadaynayaa marxuum Carab Nuur Xandulle oo saaka magaalada Hargeysa ku dhintay oo ahaa raggii taariikhda Somaliland ku lahaa ee halkankii ku lahaa waxaan ka tacsiyadaynayaa qoyskiisii reer Nuur Xandulle iyo dhammaan mujaahidiintii iyo dadkii la soo halgamay reer Somaliland inta dabadeed iyo cali sugulle dul carbeed
oo ahaa dadkii xorriyaddan lixdankii ku soo halgamay fanaaniintii suugaanyahankii taariikhda dalka ku lahaa oo dalka imaaraadka ku dhintay oo halgankii ka qayb galay waa ninkii lahaa dib loo furfuro iyo kala daadi mooye dawiya maara kala mare dowladdii kale kaliska ahaa ninkane tuduca uu hadraawi markastuu suugaan ka hadlaya ku halqabsado oo kala ditaliye ka hadlaya ku qabsado oo yidhaahdo guddiba daab la'aanteed miyay dogobogoysaa diricna keli ahaantii daleel guusha kama heleen dadka geesi lagu yahay ilaahay cali sugula dul carbeed oo suugaan badan iyo taariikh badan inooga tegey naxariistii jannada haka waraabiyo ummadda reer somalilandka ayaa ka tacsiyadeynaya waa goor kulul hadalkana odhan mayno waxaa halkan aan ku odhanaynaayoo keli ah oo musharaxa madaxweynaha guddoomiyaha xisbigana ah xubnaha golaha wasiirada hoggaanka sare xisbigu ay u socdaan waa diiwaangelintii codbixiyayaasha reer burco gobolka togdheer waxaa laga doonayaa inay maanta soo bandhigaan tirada gobolkooda tirada dalkooda somalilan waa doorashada baarlamaanna waa ku dooranaysaan madaxweynena waa ku dooranaysaan diiwaangelintiisa u diyaar uma nihin gobol walba berrinta wax loogu qorshayn doonaa waxa uu diiwaangelintaas sameeyo arrinka kale halkan aanu nimi musharaxa madaxweynaha intii ay wax ku duuleen ee la magacaabay idinmu imanine codkii madaxweynenimadana soo uma haysaan waxaan ku soo dhawaynayaa wasiirka duulista hawada cismaan cabdilaahi saxarki بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxa mahadda iska leh ilaaha qaadirka ah sida quruxda badan dadka quruxda badan iyo nabadgelyada iyo wanaaga iyo shacniga isugu keenay ayaan marka hore u mahadnaqayaa ilaahay baan u mahadnaqayaa marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh reer Burco ninkii kulmiyaha uu garanaya xarunta Soomaa ninkii kulmiyaha uu garanaya guri uu garanaya xaafadan waa meeshii aynu kaambeynka ku galay ee aynu madaxweynaha ku saarnay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo Soomaa waa garanaya guri aan garaacin aniga iyo raggii halkan jooga Maxamed Kaahi waanu garanaynaa maalintii aanu halkan ka gurray aanu nidhi xarunta aynu xagga u rarno Somaliland oo dhan waa Soomaa ku jahay aad baad u garanaysaa waxa weeye taariikh gaar ayay xaruntan ugu leedahay runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan wujuudda halkan jooga iyo inta kale inaga maqan intaba waxaan u hayaa gobolka Togdheer waxaan qabaa inuu tahay xaruntii xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliya maantana waxa weeye gobolkan iyo gobollo kale madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo way soo saareen maantana waxaynu soo saaraynaa mujaahid waxaynu soo saaraynaa mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxa weeye waxaynu soo saaraynaa waxaynu ognahay sidii Siilaayo inuu naftiisa iyo reerkiisa iyo labadaba uu huray sida Soomaaliland waynu wada joognaa waxaan idin leeyahay hadalkii ahaa muxuu ahaa kakacay kabakaba yimi kakacay istiwaa geliyey war soo maaha waxa weeye waynu istiwaa gelinaynaa gobolka Togdheer yaan lagaa cod badin waxaan ku soo dhawaynayaa wasiirka howlaha guud cali mareexaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر
غير برهان وهذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابدا إنك كنت هاجنا هاي لابد يكون يافرتي أنا قاعد قدومي أكلني قبل كتقولين كابدا بريء ساندس واحد تاريخ ناو شيء وحوي حسب جمهور جريسة تحية طوال سنة ملاح دال كنت هاجنا محمد كاهن يوم موسى يا عبد الكريم حني فوسنا أساسيا شيء ها يقول غير سكري وين كنا يسنا هالكن شوقة يوم عطاني يوم ملاح لكلام فرح بدل لي هذا نقول صعنا وحوي الحسب النمضو سنة سياسة قارئ كل شيء واحد سياسة دوام مصلحة ما هو مبادئ ما هو مركز دل إدايات قشو مركز دل إدايات كبحده مربعد مذبي سماحة وين هالكل لجوية قاني وين أنا كم قطعات كل ما تاكل صباحا وحوي ماذا هذا هالكل مريض حسب السير كمان ناس وقلين وأنا على أساس السير نك قبل منه إلى هي أنت وحسبك شنو يبغى الأرض سرية تاريخ وها سياسة هو مبدأ عهدي وعلى نظر عهدي والدين عهدي يا بلانتو ناس تاوي وحنا نتاو نافيا وحوي وقت جيجان بلارن أو قدومية حسب جيجان مشرح وهجامية ديوان قلنا شيء بينو سعنا ديوان قلنا ما حد يحرك هذا الشيء وديوان قلنتي عد بحياشة ومستقبل كي قبلك ودور شوي كصوص على وتملحة النمذا وتديجانك وتبرلمانك والله يسفر الدجانية هذا قبلك تقدر بريجا ورد على رود جاي إنك كانوا والله يستشعبينية وأنا اللي قلت تشابيه والله قلت لعبة وحالك إنك كم وقدر تذكر وقول كي بس سجاش هو اللي يلا ما تتشاف ملا ديوان قلنت ورا مبي هذا مبي هاي بحق إذا ديوان قليان وعن يكون مية يكون يريق لأنه إذا كان غير قادرنه إن ديوان قليسان عدكي نصوص صارتان إذا كون حقينا إياك موادك إياك قرنك إياك قبل كينا إياك دتكينا وهو هيلنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan kelmad siinaynaa fanaaniinteennii waaweynayd waxaa halkan inala jooga annagiiyo muuse waan ku dambaynaynaa faarax murtiile oo laba kalmadayna bismillaahi rahmaani rahiim aad iyo aad reer barco aad baan idin salaamayaa markii hore warigii reer barco waa fariido fariidadana way taageeraan muuse waa fariida taageera waxaa la yidhi muxuu ahaa darajadii baa la qaybinaya waa laheba darajada la qaybiyo darajadii baan si fiican haysan waxaan ku yidhi taas wallahi rag badan bay ku dhacdo siiraanyaba lama siin darajo muxuu ahaa ina bixi darajada waa laga qadiyey markaase oo maxay noqon lahaayeen maxamed kahin iyo ina berigo laga qadiyey maxay noqon lahaayeen baa lahayd darajada la siin lahaa siiraanya ina bixiyo dee siiraanya maarshaal buu noqon lahaa baa la yidhi muuse bixna maarshaal suge hadday raacdadeedii ninkii caday ka dhuubnaaday caraabiyo jarmaadaba ninkii caata soo waayey ciyowgii dhawaaqaba ninkii culus gobaad mooday iyo kii caraabee tegay caalamka leh dhowfay kala cugoo dadkaygow raggaaha isku soo celinee hadday raacdadeedii raggii caday ka dhuubnaaday rag ninkii ciqaabta umutee ciilu dhiiban gaadhay rag ninkii u aatooba ee cudooda haw beelay caawaba hadday nool yihiin waa caawo ilaahe iyo kii caraabee tegay caalamkale aaday kala cugoo dadkaygow ragga ha isku soo celin
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad waa goor dambe waana saacad kulun wax badan baynu dib u soo oranaa gudoomiyaha iyo waftiga uu hogaaminaya waxay nala joogayaan ilaa 4 cisho waxay nagala qayb galayaan masiirkeena iyo mustaqbalka gobolka Togdheer oo ah diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaan idinku dardaarayaa hore iyo mar iyo laba bayd oranaya inaynu ka qayb qaadano oo aynu ka noqono gobolka koowaad ee lagu dhiirado sida fiican uga qayb gala waxaan imika ku soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha mustaqbalka بسم الله الرحمن الرحيم gobolka koowaad waxaan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta aad ilaa saaka iyo imikooda tukada aad taagnaan cadceedda soo dhaweynaysaan maanta iyo intii badnayd tobanaanka sano ahayd inay soo dhaweynayseen ee laga yaabo qaarkiin inaydan markaa dee carruba ahaydeen aabbayaashiin iyo hooyadiin ugu soo dhaweynayeen aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa تانسران أنو ديكاسي مدحويني قرنكا أساسه كلمية قدومية سلام هل يجي سومالاد أحمد سيلايو waxaan intaa idin raacinayaa waxaa kaloo marna waadi ka baahdanqaya haddii aad tihiin gobolka Togdheer dhammaantiin doorashadaa maanta la bilaabantay ee diiwaangelinteedii la bilaabay codkeedii aad siiseenna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waayo golihii dhexe dadkii matalayay dhammaantood codka anigay siiyeen idinkaa soo faray sida adigu soo farteen bay furiyeen markaa codkaana waan idinka mahadnayaa Togdheer oo dhan burco dhan walba ood weyne meel walba gaarsiin Togdheer dhammaan codka anigay siiyeen reer Togdheer caynaba waa sow markaan isgaari doonaa وأحسن يسوني مكان عليك تقول كذا ما هذا تقدر بين جوجنا قولي إذا حاس صوت التيار ما تقول عدك وكان وحي كذا كنت هاي ويعودي يخرج تقدر هذه أتوقع ما تنتهي تكلم واحد بسعي دورنا ما كان ورقة الورد هاي بسعي دورنا حتى أنت بوه هذا كسر تعود كذا يصير قال يا رب تبارك الحسنية وزير كعارك وأنا هقول هيدا هالكان أنا وأنا ليراه ayaan xisbiga ku biiray gudoomiye gobolka ku noqday kaalintan u dhisay qowli toosan wuxuu marayaa wasiirka hawlaha maxaa u haray madaxweyne Soomaaliya anigu صدم مسافة تبارك كور أدو كورون أنا يدي كذا لك أيها وحنا سكرت هاي سيرايو ومركا كسور جتني سياد بره سيرايو يا عرت يا محمد جنرال عين إسماعيل عرب بكر أيها كسور جتني طول من سياد بره أنا ودادي ناكلو وأنا كل راعي وأنا كنت بقلي صدق كيس نرد بس عليه ما أنت أنا وكان مدحوينها يشرحي يسوق قعدت يتحكي صدق مركب قبل الأسواق من التعصيل هذا لأن يرد عرب الرحالة دون بانتها التهريب لها هذا غيرك ساحب هذا تهريب المركب برجال رهيب بقى تهريب ولا الكمية من يرد ويتجس عرب الرحالة اللي يرد شلتينوها حنف اللي يرد شلتينوها غير سيا بانت سياسي وين وغير اللي يرد مركب شلتينوها الحزب بتساسا مدح لوgu noqdaa dalkaaga siyaasa loo aamina magac iyo murad baa lagu yeeshaa waxaan dhalinyarada ku boorinayaa inay u adkaystaan duruufaha badan siyaasadana ay mabda ka raacaan waynu soo warrami doonaa mar labaad iyo mar saddexaad rag iyo dumar waa mahadsantihiin Togdheer oo dhan burcana way mahadsan tahay burca ha noolaato